السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. intaas kadib maxaa ka cusub arrimihii wadanka Holland? Saa la socotaanba wadanka Holland ama Netherland loo yaqaano COVID-19 sharciyada cusub ee COVID-19 ay soo rogeen dabcan baarlamaankooda dib baa loo soo celiyey corona matrakhal wax la dhahayo. awal waxaan ka bilaabaya horta kow maalintii labadii bishii ahayd oo talaado ahaa ayaa waxaa hadlay ninka prime ministerka iyo wasiirka caafimaadka oo lagu magacaabo Dion. waxay ka hadleen arrimahan in 6 September markii la gaaro maalinta Sabtiga qof walba uu qaadan doono mundcap iyo wax lagu yaqaano ama sanxirashadii la bilaabi doono. sanxirashadaas oo loo qaadan doono meel walba oo xagga dowladda ah. ya mundcapka waxa way farbiliqtu wuxuu ku yahay dukaamada supermarketka in andra vehicles dukaamada kale kuwa dharka la mid ah kulligood oo in public renting meelaha dadka iskugu imaanayaan waxaa ka mid ah shopping centerada meelaha kor ka xiran oo kale Motenver and Mundcapes waxaa ka mid ah meelaha dadka ku kulmaan sida solos waxaa kaloo ka mid ah kabarka waxaa ka mid ah kabarka timajaraha oo MBOs hogeschool ama dugsiyada lagu magacaabo MBO middle bar group on the voice dugsiyada farsamada gacanta ee dugsiyada dhexe loo yaqaana iyo hogeschool dugsiyada sare oo loo yaqaano Muten student in munkab drachen alles sich bewegen hadda la dhaqaaqeen iskuuladaas waa lagu xiranayaa marka halkan kuma cadda in bas iskuulka xiranay lama sheegin kuma cadda kollay warka oo ninka soo tabiyey waxaa kaloo ay sheegeen wax la dhahay controller app mar la weydiiyey waxaa jira wax la dhahay QR code wax la dhahay QR code-ka waxa waaye code sida barcode-ka camal supermarket markaa gasho wuxuu akhriyaa cuntada akhriya telefoonada loogu talagalay si informationkii oo looga akhriyo information dadka fahmi karaan waa wax qarsoon oo maaragtay encrypted ah ay dadka say u fahmaan intaas marka abkaas marka wuxuu tilmaamay waxa qasab ku ah meelaha loo yaqaano sport schooling swimming baadka meelaha lagu dabaasho waxaa ka mid ah Dorstromen lokaasi museumka ka mid ah waxaa ka mid ah Boyton Terrace maqaayadaha kuwaasoo dhammaantood isu geey waxaa laga rabi doonaa inaad haysato abka check corona la dhahayo inaad haysato waa dadka tallaalan haddaad tallaalayn lagu ogolaan maayo meeshaas hal shardiya lagugu ogolaanayo mensen die niet gevaccineerd dadka aanan tallaalayn zijn moeten steeds nog weer laten testen waa inuu warqadda testiga haystaa oo via een geldig QR code inuu haysto ya marka meelo badan markaas waa loo ogolaanaya warqaddii inaad corona testi aad soo martay 24 saac gudahoodii inaad haysato ayaa lagu ogolaanayaa marka arrintaas waxay saameynaysaa waalidiinta aan istallaalin carruurtooda haddii carruurta dabaal aad geynaysay oo arrimaha kugu soo foolla ayay noqonaysaa marka ku celiya mar kale meelaha aan lagu ogolayn adoo haddaanan vaccinaasiga ama aadan qaadin vaccinationka waxa loo yaqaano ama tallaalka oo labada tallaal haddaad qabin ka soo qaad corona check wax la dhahaa jiro oo listuso oo telefonkaada garanayso meelahan maqaayadaha qasab ah waa maqaayadaha sport school and fitness ka meelaha la mid waa soo hosgalaa wixii sport school oo dhan swim baadin meelaha lagu dabaasho waxaa ka mid ah museumka iyo Boyton Terrace waxa waaye maqaayadaha in restaurantiyada ay tagto inay ka jeegareeyaan
intaasoo idil waa lagugu soo koobay insha allah. 6 bisha waxay ka bilowdaa qof kastoo Netherland degan mundakaab diraaxin qasab waay maalinta sabtiga ayuu bilaabanaya. haddaad dukaamada galayso iyo haddaad dukaamada dharka galayso iyo dhammaantooda iyo meelaha daboolan oo dhan waa qaadanayaan. sida waxaa ka mid ah khamiintiyada CBR laftirkeeda waa idiin soo wadaa xagga imtixaanaadka cashir gooniyan uga hadlaya iyadana CBR laftirkeeda way soo rogtay. marka arrimahaasoo dadkoo dhan ayay noqonayaan. CBR weli sharciyo cusub ay keentay qaybtaas maad ku dhegeysan doontaa insha allah. arrimaha ugu muhiimsan waxay tahay iyo under half meter inaad ilaaliso 1 mitir iyo barka. yaa ka howlgalaya layiri howshaas waxaa kasoo howlgalaya oo la rabaa inay dadka sharcigaas fuliyaan khamiitiyada magaalada la degan yahay. khamiitiyadana waxay adeegsan doonaan wax loo yaqaano handhafinka waxaa wax isticmaala jarmalka ordun amte isticmaala wax la dhahayo handhafin. waa sida dabcan sida ingiriiska police community-ga u isticmaalaan oo kale camalku ah oo booliiskay la shaqeeyaan iyo dowladaha iyo konsolada. marka handhafinka kuwaas ayaa buuta ku jiraya insha allah ama ku ganaaxaya ama aad maragtay. marka xasuusnaada walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo joogtaanba waa janalkeeni Faanol Jala iyo warbixinta cusub marba soo kordhaa inay la socodsiino wixii news wadanka hore ka soo kordhaa. waxay idinkaga tahay meel kastoo joogtaanba caafimaad iyo farxad ku noolaada.